waxaa maanta munaasabad lagu qabtay magaalada Mogadishu oo ku beegneed 8 Marso ayaa munaasabadaasi ka dhacday magaalada Mogadishu munaasabadani oo looga hadlayay gudniinka fircooniga iyo waxyaabo kale oo diiradda lagu saaray munaasabadani ayaa ka soo qayb galay dad kala duwan munaasabadani oo ka dhacday maanta hotel Xayaat ee magaalada waxaan u hambalyeeynaa haweenka Soomaaliyeed khaasatan haweenka naafada ah waxaa moodaa in la iska kaanay ilmaamay haweenka naafada aysan maaragtay ka dhex muuqanin dabaaldega 8 Marso na lama xuso na laguma xuso maalintaas waa la xusaa wadanka waa laga qiimeeyaa waa laga maaragtay haweenka meel kasta oo ay joogaan gobol tuulo degmo maaragtay waa maalin weyn laakiin dumarka naafada kama dhex muuqdaan xaqiiqatan waxaa moodaa anaga naftirkeena inuu dumarkeena maaragtay xaqiraaya moodaa gabdhaheena naafada ah laakiin anaga saas daraadeed ayaan maanta waxaan ugu qabsanaybo aan kaligeen maadaama aan dhex gali karin ma lagu marti qaadin nala ogeyn adduunka gaar ahaan kuwa Soomaali maxamed waxaan baleenayaa maalinta haweenka adduunka waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay waxaad tihiin dumarka maanta dumarka beri iyo dumarka mustaqbalka waxaad tihiin dad howlkar ah waxaad tihiin dad jira tan kale maanta waxaan rabaa inaan codkeeda ku baahiyo aan u gudbiyo dhammaan dumarka adduunka dumarka Soomaaliyeed in ay iyaga codkooda banaanka keenaan ay hadlaan xaqooda dhacsadaan haddana markii la dhaho dumar adduuna la leeyahay haddana xaqoodii ma helaan oo run ahaantii gudniinka fircooniga saa wada ognahay wuxuu leeyahay dhibaatooyin fara badan marka aan soo wareysanay dadka qaar waxay noo sheegeen dhibaatooyinka dhibaatadaas jirto xalkeeda marka waxaa loo baahan yahay in la joojiyo dad qaar wuxuu dhahay maxaa caadada gooya cara alay leedahay waxaa la sheegaysid caadana ma ahan kitaab quraan wax ku qoran farxad ay tahay marka inaan 8 Marso oo ay qabteen gabdhaha naafada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ee naafada ah inaan maanta ka soo qayb galo aad iyo aad waxaan ugu bogaadinayaa inay xasuustaan inay tahay maanta maalintoodii inay gartaan inay tahay maanta door ay ka qaataan